marka in mabaadi'da asaasiga oo islaamku la yimid dowladnimada casrigan ay sheegayso in dowladda lagu dhisto taasaan weyn anagu weligeen waan ogeeno waa iska wadna bahasha warqadaha la qorqoraya kaliya taasna waa qodobka afraadna waxaa waaye in lala akhriyo dastuurka masaalixda qaranka مثلا midnimada dalka difaaca dalka amniga dalka waxyaabahaas afkaarta qaldan oo kale in laga hortago yani dad Soomaaliya waxa dhici karta in dawladihii noogu cadowsanaa ninka Soomaaliga markuu xanaaqo inuu aadaba si uu kaalmo uga soo raasado oo dawladiisa kula dagaalamo arrimahaas in dastuurka lagu qoray mar hore oo loo arko qofkaas horta muxuu mudanaya aniga maanta dan xanaaqo cali wajiis ahaan ee aan aado cid kasta haddaan bani Israa'iil aan aado si aan danteeda u gaaro reerkayga aan ku kiciyo inay maslaxadeeda gaarsiiyaan waa in xeer iga yaala ay qabanaya aniga oo dhahayo ninkaas waa khaain wadan qof kasta ku fikira ama ku dhaqaaqa Soomaaliya waxba meel uga maalin ognahay oo sognahay waxa dalkeenu u burbur waxay ahaday had badul xanaaqayo oo meesha raba aad ay kana soo qaraabanayo wuxuu rabaa soo qaadanayo marka yaanan ku daahinay asbaabta haziimadu waxay nagu la dhacday waxay ahaday dastuur dhammaystiran akhlaaqiyadkiisa mabaadi'diisa weligeed dalkan waa inaan maanta sameynaa qodobka saddexaad oo aad u muhiimka waxa waaye oo islaha asaguna waa muhiim shunti shaqnur baa ishaaray maanta waxa loo baahan yahay dawladda naajixa oo dadka muslimkan kale anaga gaalada taawun adduunka naga dhaxeeya laakiin anaga akhlaaq iyo aqoonta kala qaadameen oo asaasiyaadkan isku khilaafnay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan isku khilaafnay nabi maxamed isku khilaafnay quraanka isku khilaafnay marka adduunka waa naga dhaxay kartaa oo in qofka iskhilaafteen inay cadow ku aado shardi ma ilaahay quraanka wuxuu noogu sheegay asalla an yaj'ala baynakum bayna alladhina aadaytum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim dad cadow isku tiino ilaahay mawadda dhexdiina dhaxay kara laakiin laba shardi bay leedahay mawaddadaasu inuusan diin aqoonta kula dagaalamin dalkaaga madax banaanada qarnimada inuusan dhaawicin oo san weerar ku ahayn ayada ka dambaysa sheegaysa la yanhaakum alladhina lam yuqatilukum fi din inma yanhaakum alladhina qatalukum fi din walam marka labadaas qarannimadii iyo aqoontii inay isku xiran yihiin dalka iyo diinta isku xiran ilaahay baa noo sheegay waana labada dagaal iyo nabad lagu kala qaadan karo marka haday saas tahay marka in aan dawladaha islaamka ah mar walba iyaga tusaale fiican noo ah haddana horumarka gaaray ee adduunyada iyo diinta iswaafajiyay annagoon soo koobiyeen laakiin ka faa'iideysanayna ka marjici ahaan ka yaani maarta tusaale wixii wanaagsan oo ku jira Turkiga Malaysia Sudan dalal badan oo waxa jira wax badan Pakistan qoraal badan sameeyay oo laga faa'iideysan karo iyo kuwa kale inaan soo akhrino oo dadka aqoonyahanka ay maraajic badan ay soo akhriyaan qodobka ugu dambeeya oo raba inaan ishaaro wuxuu yahay kan ka horeeya in aan runtii annaga culimo ahaan aan jeclaan lahayn in aan dowr toos ah aan ku yeelano markaan culimo leenahay waxay ka dhigan tahay aqoonyahan akadeemiyiin u badan oo aqoonyahan sarsare ah oo ninka ugu yar baaj oo haysto qaarna ay PhD wada wataan oo shariicadan soo bartay qaarkoodna ay qaanuunka ijraa'aatiga ay soo barteen annaga aragtida aan dastuurka u haysano qabi qoraalkan waa soo akhrinay hadda ka hor tu'alifkan waa muraajaceynay waa waxyaabo badan way nooga muuqanayeen tadaarubka idaaraadka iyo arrimaha qaarkood oo iska caam ah sidii xeerka jimcada qurmaha ka dhaxaysa fartiisa doo aqbalnay iidoon istifnaad la gelin oo kaleeto xuquuqul insaanka iyo waxyaabo badan oo muraajacad u baahan oo nooga muuqda waa jireen oo khalal badan ka dhex jiro laakiin qodobka ka sii darankaas wuxuu ahaa in dastuurka ijraa'aati idaariga kaliya uu diyaarsan yahay waa jaanibka idaariga waa kaliya laakiin inuusan jaanibka akhlaaqiyadkii mabaadi'dii arrimaha hadda aan sheegaynay afkaartii waxaasoo dhan lama taaban maaligii jaanibkii maaliga ahay jaanibkii qadaa'iga ahay marka dastuurna marka la idlaaqayo dastuur dawla waxa weeye dhammaan qaybaha dawladdu ay leedahay buu kulminayaa